arrinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nugu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbeddelay annagu ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin waxyar kaftanaan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 weji yuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladdeeda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhaahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choiceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choiceka isagaa iska leh inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo walaalayaal wakhti ku darsasho iyo wakhti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay haddii wakhti qof walba la doortay wakhti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha saas darteed ma aha wax qof gaarah loogu dan leeyahay laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan hadday tahay dowlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado wakhtiga saxa oo election ka jira uu isku diyaariyo marka ummaddana kalsooni dhexdooda laga